maadaama kooram la'aan oo la buuxin waayey waqtiga nagu dhamaaday daraadeeda shirkeena u baaqday magaaladan aan ogahay in xildhibaanada ay joogaan dhamaanteen markay waxa aad iska noqotay markii maaragtay in waqti la raban iska furbo maanta dhan inta fadhiyaan sugaan dad aydo magaaladii jooga imaanaynin hadda 120 hal noo sheegay waad ogtihiin 120 kooramkeena wax yar ka dhamaan markii la fiiriyo waxa ka dhamaan 19 qofood ka dhamaan waqtiga xildhibaanada sharafta leh waxa ka codsanayaa 4 saac in kooramka soo buuxisaan 4 saac kooramka inuu buuxo fadhiga soo 4 saac inuu soo buuxo xildhibaanada sharafta leh waxaad ogtihiin in maaragtay 4 saac markii la gaaro xeerka uu nafarayo inaan hal saac ku darno waa lagu daray haddana 5 saac waa dhamaatay marka waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan maaragtay aan ka fakirno sidii habsami socodkii baarlamaankeen howlaheeni aan ku ilaalinayno shuruucda noo taalan dhammaanteen wada tixgelino waxyaalo badan oo runtii hataa guddoonka lagu eedaynayo waxaa jira heer hoose aad uma hoggaansantihiin 5 saac markii la gaaro waa iska maqnaanaysiin waa run waana la dhahaa annaguna waxaan aragnaa xildhibaanadii 3 saac inay yimaadaan la rabay oo waqtiga imaanaynin marka dhamaanteen markay waxa aad iska noqotay markii maaragtay in waqti la raban iska furbo maanta dhan inta fadhiyaan sugaan dad aydo magaaladii jooga imaanaynin xildhibaanada sharafta leh waxaan u baahanahay inaan dhamaanteen aan ka taxadirno waajibaadkana saaran oo dastuuriga ah inaan ka fakirno oo aan ilaalino shuruucda noo taalan aan ilaalino aad ay muhiim u tahay waxaan runtii aad ugu farxsanahay in xildhibaanada qaar dad naga mudana jira inaan shahaado sharaf siino baarlamaanka dhexdiisa oo wiligood maaragtay habsaan jirin subaxina soo fadhiista hadii la shaqeynaan marna dad waa iska soo daahan caadi ay ka dhigteen marka walaalayaal xuquuq samanaan wada leenahay dhamaanteen oo na fariiso inaan ilaalino heer hoosaadka iyo shuruucda noo taalo marka maanta waxaan rabaa in maaragtay xildhibaanada soo dadaalay oo markasta saas xaadir oo waajibaadkooda dastuuriga u taagan inaan u maxdalino xildhibaanada maqnaashaha culays u arkaynin oo caadi iskaga dhigtay ayagoo magaalada joogan iska maqnaanayo haddii kale banaanka iska jiraayeen inaan codsi u jeediyo taas maaragtay oo ah in maaragtay ilaaliyaan waajibaadkii lagu leeyahay oo loo doortay oo ummadda Soomaaliyeed waajibaadka horyaalay ka sugayso inay gutaan marka maanta hadda 120 hal noo sheegay waad ogtihiin 120 kooramkeena wax yar ka dhamaan markii la fiiriyo waxa ka dhamaan 19 qofood ka dhamaan marka haddii intaas ay imaan lahaayeen hadda baarlamaanka waa noo furmi lahaa golaha waa furmi lahaayeen shuruucna waa la hortaala waad ogtihiin kal fadhigaana sidiisaba qeybta horena cibaadadii wuxuu ku soo toosay soonkii iyo cumrooyinkii la aaday iyo garinkii hore qeybta horena iyo maaragtay baajiyay haddana waxaan soo dalagali doonaa xildhibaano badan inay xajin doonaan laga yaabaa haddana ashuru waxa lagu jira ashuru xajka lagu jira haddana balaawanaysa dulqacdiya balaabatay ashuru xajka lagu jira haddana xildhibaanada la bixi doonaan marka kal fadhiga dhan waxa maaragtay yaani naafayay waqti cibaadadaas ku soo toosay marka haddaan dadaalnana dhowr hindisa shariyadan aan sahin karna ayaan ka gudbi karna dadaal la'aan muuqata xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa dalkii dibadda meel ay joogaan inay soo xaadiraan aan la maqnaanin maalmaha noo harsan in baarlamaanka la soo buuxiyo si aan shuruucdan na hortaalo had akhrinta koowaad iyo labaad iyo marayo aan u wada ansixino haddii maaragtay saas lagu socdo kalfadhigan dhan inuu baaqid amal ay noqonaysaa wixii kalfadhigan loogu talagalay kalfadhi kale u gudbaysaa dad kale u imaanayn malaha dadkii waajibaad ku saaran waa xildhibaanada maaragtay hadda la sugayo marka xildhibaanada subax kasta meesha fadhiyo xildhibaanka maqan isku xuquuq weeye marka maanta maaragtay waxaan leeyahay xildhibaanadeeni dal iyo dibad joogaan la hadlayaa hal la soo xaadiro waqtigan hal la ilaaliyo annagu ka guddoon ahaan xildhibaanada dhaliishoodii waan qaadanaynaa haddii dhinacaanaga yacni duldulaalka yimaado waan qaadanaynaa xildhibaanadan waxaan rabnaa inay u hoggaansamaan shuruucda noo qoran iyo soo jeedinta guddoonka oo ku codsanayaan in kaalintooda buuxiyaan oo maqnaashaha sabab la'aanta la iska dhaafo walaalayaal marka maantay maadaama kooram la'aan oo la buuxin waayey waqtiga nagu dhamaaday daraadeeda shirkeena u baaqday
magaaladan aan ogahay in xildhibaanada ay joogaan tan waxay noo noqonaysaa maanta xildhibaanada maqan yaan la hadlaynaa in maaragtay ka fiirsadaan sahalashada oo maaragtay waqtiga samaala aan looga lumahayo in laga wada waantabo inay yimaadaan maanta waa maaragtay arbaca weeye fadhiga ugu horeeyay sabti buu noqonayaa sidii caadada ahaan jirtay guddiga joogtada marka laga reebo sabtiga xildhibaanada sharafta leh waxaa idinka codsanayaa 4 sac inaad koorumka soo buuxisaan 4 sac koorumka inuu buuxo fadhiga soo 4 sac inuu soo buuxo marka sidaa daraaddeed xildhibaanada imaan waayba maanta baaqishada sabab u ah in aygan markaa la sababsan inaan ka codsanaynaa fadhigeeni maanta saasuu ku xidhmay walaalayaal idinku aad iyo aad u mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh